السلام عليكم. Ishadii guushaas Coca-Cola. Ma u malaynayo inuu jiro qof adduunka ku nool oo weli maqal sharaabka Coca-Cola. Coca-Cola waa shirkadda sharaabka soo saarta oo lagu qiyaasay hantideeda in ka badan 180 bilyan oo dollar. Sanad kastana waxay iibisaa in ka badan 80 bilyan oo dollar. Caalamka oo dhanna waa laga helaa. Dad badan ayaan fahansanayn siday guusha u dhacdo. Waxayna ka haystaan fikrado qaldan. Fikradaha way aamineen waxayna ka dhigteen wax xaqiiqo ah oo jira. Qofka iska caadiga ah wuxuu u malayn doonaa in shirkadda Coca-Cola uu bilaabay qof milyaneer ah si fididna ugu ballaaday adduunka oo dhan. Xaqiiq ahaan ninkii bilaabay shirkadda oo la odhan jiray John wuxuu ahaa nin farmasi iibiya meesha daawooyinka lagu iibiya. Wuxuu si qaldan oo aan ugu talagalin u soo saaray oo uu ogaaday isku jirka sharaabka. Wuxuuna isku dayay inuu ka iibiyo wixii uu soo saaray farmasi kale oo agtiisa ahaa 5 senti ayuuna ka siiyay koobkii. Sanadkii ugu horreeyay Coca-Cola wuxuu iibiyay 9 caagadood oo sharaab ah. Sanadka dhammaadkiisana wuxuu shaqeeyay lacag gaadhaysa $50. $73 wuxuu ku bixiyay xayeysiinta sharaabka. Waxaad arki kartaa inuu ku khasaaray sanadka. Sanado kadib niman ganacsato ah ayaa kaga iibsaday ninkii aasaasay lacag dhan $2,300. Kadib waxay noqotay shirkadda weyn ee aynu maanta naqaano. Casharada laga baran karo sheekada Coca-Cola. Waxaa jira casharo aad u badan oo aynu ka baran karno sheekada. Waxaad ka bilaabi kartaa meel aad u hooseysa waxaanad gaari kartaa meel aad u sareysa. Shirkaddan waxaa laga bilaabay meel farmasi ah. Sanadka ugu horreeyay wax faa'iido ah ma sameyn. Dad badan ayaa u maleeya inaad wax bilowda ay u baahan tahay wax weyn si aad meel weyn u gaadho. Taasina waa fikir qaldan oo ay ka aaminsan yihiin guusha. 2 waa wax iska caadi ah in aanad wax natiijo ah arag bilowga hore. Aan ku weydiiyo su'aal, maxaad samayn lahayd haddii sharaab cusub oo aad soo saartay laga iibsado 9 cabitaan oo kaliya sanad dhan? Miyaad niyadjabi lahayd oo joojin lahayd? Dad badan ayaa u maleeya inay tahay inay marka hore natiijo helaan si ay u sii wadaan, balse xaqiiqadu waxay tahay natiijada aad rabto waxay imaanaysaa markaad sii wado. 3 waxaad heshaa waxaad u qalanto markaad sii wado dadaalkaaga. Coca-Cola waa sharaab cajiib ah wuxuuna u qalmaa inuu caan noqdo, balse haddii ninkii aasaasay uu niyad jabo oo uu joojin lahaa markii uu iibiyay 9 cabitaan sanad dhan. Haddii si kale u dhigna, haddii fikirkaagu yahay mid aad u fiican, ha ka rajayn inay dadka hore kaaga taageeri doonaan ilaa aad samayso dadaal aad u badan mooyaane.